عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام ولا لا خالقة meel waa dunida fadhig joogtiin waxaan leeyahay waqtigiiba ayuu idin macnaado waa walaalkiina Axmed Ifka dibinka uga soo laabtay maasha Allah walaalaha qaaliga maanta jadwalkeena maxaa waaye sababta talka ugu soo aragteen maanta jadwalkeena waxa waaye kushiinka isku soo xaadiriyo ujeedin wax diyaar ah malahan markaas ka bultaada kaliya waxa diyaar isticmaalaya ku diyaarnay wax ku diyaarnay malahan andin maanta waxa rabaa inaan sameeyo afuraan waa inaan sameysto afurkaas oo kooban waxaan sameysana wax fudud iska sameysana insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo bal nala wada sidoo kale inta meeshaan wax walba ayaa igu diyaarsan waxaan joogaa jikadayaan joogaa halkan waxaa igu diyaarsan yaanyo kabsar iyo toon iyo hilibkii iyo agabkii oo dhan ayaa igu diyaarsan halkan maanta waxaan rabaa inaan afur yar aan kala kiciyo waxaan soomanahay labada biri oo soonka ah waxaan san u ilaalsanayaa kaamirada aan saxooyaa sidii ku fiican tahay mise sidii ku soo bixiso waxaan bilaabay inaan yaanyadii aan jarjaro ayaan bilaabay sidoo kale inta jikada markaa kaliya tahay waxa waaye waxyaalo far badan maskaxda ku soo dhacay waxyaalo far badan waxaan jarjaroyaa yaanyadii aan jarjaroyaa hadda already sidoo kale inta dadka waxay u arkaan in ay jikada markaa gashid ay dhib badan tahay mise xaalad adag ay tahay aniga wax adag ma arko balse hadda waxaan u haystaa jaanis okay sidoo kale inta shaqo ma jirto labadan bari waxa jiro doorasho anigana xafdan iska jooga marka waxa go'aansaday maadaama ay xiran yihiin maqaayadaha dhan mise hoteelada dhan in cuntada guriga aan daa'imo mise aan sameysto saas ayaa go'aansaday balse ani waxa ku haystaa cuntada guriga aan ku sameysto ayaan ku haystaa cuntada kale oo banaankan ka cunayo way igala dhadhan badan tahay cuntada guriga aad ayaan u jeclahay cuntada guriga hadda waxaan ku mashquulsanahay yaanyadii ayaan jarjaroyaa sidoo kale waxaan filayaa inay igu qaadanayso waqti aad iyo aad u dheer balse aad iyo aad waan ku caajis baxsanayaa ilama ahan wax aad u shida badan ma ila ahan wax dhib badan haddana sidoo kale wixii oo dhan waynaan dhameen rabo ay u eg tahay wallahi marka adiga cunto guriga ku sameysanaysid aad ay u macaan badan tahay aad ay ugu fiican tahay hadda ku fiican tahay dhanka iyo cunto karinta waqti badan wixii ka caawinaysaa xaalad aad iyo aad u adag marka adiga maraysid kale way ka caawinaysaa matalan hadda aad tagtid meel oo dhib badan oo maqaayadaan lahaynin misana meel oo maxaa laga helaynin cunto oo guriga cunto ay ku taalo aadan karsan karin aad bay u dhib badan tahay balse ragga Soomaaliyeed waxay u arkaan cunto kariska ceeb ay u arkaan anigana cunto kariska ceeb uma arkay naftayda ayaan ku difaacaa waade mara fara badan aan arkay oo cunto kariska aan bartay oo meel iga soo baxday ayaan arkay sidoo kale caajisna kuma qabo wax aad iyo aad u dhib badan mana arko sidoo kale waxaan jeclahay dadkaan aqoonin inaan aaga faa'iideeyo qaybta commentiga waxaad igu soo qori kartiin Axmedow cunto kariskaaga waan jecelnahay noo soo geli sidoo kale waxyaalaha aan aqaano oo dhan markaas waan idin sameynaya waan idin soo gelinaya matalan cuntooyin kala fara badan aan aqaanaa oo aan sameyn aqaanaa sidoo kale waxaa ka mid ah baastada bariiska jabaatiga canjeerada ceeshka galaamudaha camboolada soor baranso wax walba waan aqaanaa waxaasoo dhan waqtiga wuxuu ku baraa waxyaalo mar ahaantii sidaheenin way u baxsanaysaa ayuu ku baraa aniga markayga hore balse mana qanin ku oo maqaayad farba oo ka shaqeeyo balse hadda waxaan aaminsanahay inaan dadka ku geeyo xataa inaan ka fiicnaan aaminsanahay waayo waxaa jiro cuntooyin qaarkood aan aqoonin waxaan ka sameyn malan bajiyaha sambuuska nooc walba wax walba waxa waaye waa lagu imaanaa diyaar waaye okay halkan waxaan ugu diyaarsan kabsartii toontii iyo yaanyadii iyo hilibkii dhan already waan jarjartay digsiga ayaa dabka ii saaran waxaan rabaa inaan ku shubo ayaa rabaa digsigii saliidii ka karuuso marka waxaan rabaa inaan ku shubo rabaa soo kale markay saano kale waxay kugu diyaarsan yihiin aad bay u fiican tahay saliidii ayaan ku shubay saliidda ma jecli inaan saliid fara badan ku shubo
intaasaan ku shubayaa. Run ahaantii waxaa ujeedaa waa naxsantihiin saan u malaynayo. Waxaana ku naxsantihiin digsigeyga weynka ah ayaad ku naxsantihiin. Already waxaa isleedihiin Axmed see camal waaye digsigan weynka ah. See macnaha waxa u jiraa camal la isleedihiin saan u malaynayo. Laakiin 3 ruux ayaan ku nahay waxbaa ka cabsanaa keligey lee macnuuhi. Maasha Allah wixii oo dhan aan ku shubay. Waxa walba waan diyaariyey. Yaanyadii ayaan haddana yaanyo shiid ayaan kor ugu darayaa. Cuntada sameyn rabo waa pasta macaroni. Pasta macaroni aad bay waxay ugu baahan tahay dhadhan fara badan u baahan tahay. Yaanyada in loo badiyo u baahan tahay. Oo waxay u baahan tahay carafta in loo badiyo. Sidoo kaleente waxaan ku darsaday 2 xabo yaanyo shiid ayaan ku darsaday. Pastan karinaayana waa kiilo. 2 xabo yaanyo shiid ayaan ku darsaday iyo 4 xabo yaanyo caadi ah aan jarjartay aan ku darsaday. Waa ujeedin. Wow, wax walba waa isku dawriday inaba caadi ma ahan. Haddana waxaan iska nadiifinayaa gacmaha. Aadaan u jeclahay nadaafadda markaan cunto sameynayo kaleente. Meeshaan waxba kama dhinna. Waxaan tumayaa kabsartii iyo toontii aan isku tumayaa. Mashiinta matalan waa isticmaalaa haddaad ahayd. Waxaa laga yaabaa inaa toontii dhadhankeeda cuntada ay ku gasho. Sidoo kale laakiin marka la tumayo aad iyo aad u fiican tahay. Mashiinta si fiican ma u dadiijinayso. Okay, ku soco. Dhag weli diyaar ma naqanin. Diyaar hadday diyaar noqotay. Dab ku sii qaandada soo baxso. Qaandada weyn tahay mid kale soo baxso. Ku shub ku gedi. Inaba caadi wallaahi cuntadan anaa isku casuumaya ku dhahay si u macdahay waa yaabaysa maasha Allah. Wow ku sii.